ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada asxaabta ku xiran janaalkeena. Videoga insha Allah waxaa kusoo bandhigi doonaa shirkadda KuCoin oo ah shirkad cryptocurrency lacagaha lagu store garaysto lagu kala bedesho ka shaqeyso oo ah manasooyinka ugu waaweyn. shanta manaso ugu waaweyn ayay ka mid tahay KuCoin markii laga soo tago Binance. waxay ka mid tahay manasooyinka ugu waaweyn KuCoin. in ka badan 20 milyan oo qof ayaa isticmaasho manasadan. sidoo kale lacagaha Binance ku jiro oo kale ayaga iyo kuwa ka badanba intaba waa laga helayaa. waa meel waa platform aad u fiican run ahaantii. videoyalka hore ayaan ka sameynay qaabka account looga sameysto sida maxay ahayd marka waxyaabaha ay ku fiican tahay waxa waaye KuCoin waxaa awoodi kartaa adigoo accountkaaga verified uu ku ahayn. xogaa bay ka shuruud sahlan tahay labada dhinacba markii loo eego dhanka trade-ka markii la sameynayo iyo dhanka markii maxay ahayd account laga sameysanayo. accountkaaga soo verified ahayn ayaad lacagna ku dhigan kartaa, trade ku sameyn kartaa, lacagna ooga shaqeysan kartaa. marka videoga waxaa insha Allah idin kula wadaagi doonaa asxaab badan oo ku xiran janaalkeena YouTube-ka ayaa waxay iga codsadeen in aan ayadana KuCoin aan kasoo sameeyo video qaabka trade-ka loo sameeyo sida lacagaha cryptocurrency-ga markii lacag USDT ama lacag kale Tron ama ay lacag kale aan soo dhigto lacagaha sideen u trade gareynayaa. hore waxaan video hore idin la wadaagay qaabka lacag loogu shuban karo qofka hadduu Soomaaliya joogo iyo haddii uu wadan kale joogaba wuxuu awoodi karaa inuu lacag dhigto. marka videoyaal ayaan ka sameynay insha Allah janaalkeena ayaa ka heli kartaa. sidoo kale qaybta linkiga description-ka ayaan idin dhigi doonaa. videoyadaas ayaad ka heli doontaan insha Allah. marka waxyaabaha ay ku fiican tahay KuCoin ee uga fiican tahay Binance waxaa ka mid ah waxaa laga yaabaa caqabad inay ka haysato kale Binance haddii aanan lahayn passport aadan lahayn ama documenti dawladeed oo sida ama license oo kale haddaadan lahayn official government ah ma sameysan kartid especially waliba baalki marka stepyadeeda aad ay xogaa ay u caqabad badan tahay Binance. marka qofkii haddii uu lahayn passport oo kaleento uuna danaynayo inuu cryptocurrency kusoo biiro xalka wuxuu noqonayaa KuCoin maadaama ay tahay manase aad u weyn. sidoo kaleeto KuCoin waxay Binance uga fiican tahay KuCoin $1 haddii aa haysato xataa waa trade gareyn kartaa. macnaha waxa waaye lacagaha cryptocurrency-ga oo dhan ay ku jiro oo ugu weyn tahay lacagta Bitcoin ah oo sida arkaysaan hadda qiimaheedu uu yahay $19,977 ilaa iyo lacagta ugu yareey ee soo gashay maanta soo gashay intaba waxaa awoodi kartaa in aad trade ku sameyso. sidoo kalena haddii lacagtaas ku kacdo in aad maaragtay profit ka sameyso. waa kana dashboardka hore markii aad soo dejisato appka. sidoo kale qaybta linkiga waxaan idinku reebi doonaa description-ka qaabka la isku diiwaangeliya haddaan account ku lahayn shirkadda KuCoin. linkiga qaybta description-ka ayaa soo dhigi doonaa videogan hoostiisa description-ka videoga ku dul dhufo kadibna waxaad arki doontaa linkiga saxda ee saa u tagto oo iskaga diiwaangeliso. kadib markaa linkaas ku dhufato waxaad tegi doontaa website-ka weyn website-kooda ayaa tegi doontaa kan saxda ah. kadibna halkan emailkaaga gelin doontaa halkaana passwordka aad rabto inaad u sameysato. kadibna sign up aad leedahay. kadibna bayaanaadka inta kale ayaa dhamaystiraysaa. code ayuu kusoo diraa emailkaaga ah activation saa u sameyso. kadibna markaad sameysato oo activate garayso waxaad download garaysan kartaa appkooda ayaa download dhihi kartaa oo sameysan kartaa. okay marka intaas kasoo gudubno dashboardkooda qaabkan ayuu u sameysan yahay. sida arkaysaan halkan dashboardku wuxuu kugu tusaa lacagaha trading-ka ah oo ugu horeyso kuwa trending ku jiro macnaha oo inta badan lacagaha aadka loo gadasho badan yahay oo trading-ka ah oo aad iyo aad dadka ku jira banasada ay aad u dareynayaan. lacagahaas waxaa ugu horeeya Ethereum, waxaa ku xigo Luna Classic, waxaa ku xigo BTC oo ah Bitcoin, Shiba. lacagahan marka magacyadooda sa arkaysaan waxaa laga soo gaabiyey xarafyada ay maaragtay shirkad walba u sameysatay lacag walba xarfaheeda gaagaaban ayaa lagu soo gaabiyey iyo calaamadda loogadeeda. okay halkan qaybta labaad gain risk-ka macnaha wuxuu ku tusaa 24 saac u dambeeyay kuwa oo gain risk lacagaha ugu badan ee maaragtay kor u kaca uu ku dhacay oo aad u kacay. new listing kana kuwan wuxuu ku tusayaa lacagaha u dambeeyay sida u kala horeeyaan
lacagii u dambeeyay ee lasoo geliyay sida arkaysaan sweet coin oo kale ayaan aad u naqaana anaka oo ah abkii aan hadda kahor soomaalida aad maaragtay ugu daadanay oo ah ab kugu siinay inaad socoto lacag kugu siinay marka abkaas wuxuu soo saaray lacag cryptocurrency ah lacagtaasna waxay ku jirtaa manasada Binance manasada KuCoin ayay ku jirtaa sidoo kale volume-ka wuxuu ku tusayaa lacagaha dollar ahaan qiimaha siday u kala volume badan yihiin waxa ugu volume badan lacagta dollarka ugu volume waxaa laga wadaa lacagaha oo dadka gadanayo iyo dadka iska gadayo qiimaha dollar ahaan ay gaaraysa xajmiga volume-kooda dollar ahaan waxa ugu badan Ethereum ugu badan maadaama saa ognahay Ethereum 15 bishan ay merge samaysay oo ay iska soo tagtay ay imaatay stake of proof marka aad ay dadku u daneynayaan saa ognahay lacagaha waxaa lagu sameeyaa tacdiin ayaa lagu sameeyaa oo mashiine ayaa shaqeeyo lacagaha cryptocurrency-ga marka nidaamkii oo mashiinka ay kasoo wareegtay merge ayaa samaysay stake of proof si loo ilaaliyo daaqada iyo korontada consumption-ka ah koronto badan ayay cunaan dadka trade-ka dadka oo waxa yaqaano tacdiinka sameeyo ay aad u garanayaan okay sidoo kale loserska qaybtan waxaa lagu tusaa lacagaha sida ay kuwii ugu khasaarada badnaa oo minuska ku jiro waxaa ugu horeeya midaas MFT laga soo gaabiyey oo 21.43% minus ku jirto marka macluumaad guud halkaas ka qaadanaysaa qaybtan marketska ayaad ku dhufan kartaa marketska marka lacagaha aad rabto qaybtan favorite ka gashan kartaa hadii kalena waxaa ku qori kartaa lacag walba magaceeda kadibna qaybtaas search-ga ayaad ku qoraysaa lacagta rabto sida TRX oo kale USDT qiimaheeda ayuu isla markiiba wuxuu geynaa trade-keeda sidoo kale qaybta saddexaad qaybtii hore waa tanaa qaybta kale saddexaadna waa tanaa waa trade-ka waa midkan labaad ay ku qoran tahay trade-ka qaybtan waa futureska oo ayadana futureska trade lagu sameynayo iyo halkan oo ah qaybta assets-ka oo laga ogaanayo hantida aad haysato qiimaha aad haysato macluumaadkeeda aad kala soconayso okay qaybta trade-ka hadaa imaato tusaale ahaan lacag ayaa rabtaa inaad trade ku sameyso halkan marka waxaa ka raadinaysaa lacagta magaceeda wax laga soo gaabiyey waxaa ku qoraysaa tusaale ahaan Ethereum rabtaa ETH ku qoraysaa wuxuu ku dhahaa marka Ethereum intaan ayaa trade lacagaha oo USDC-ga iyo lacagta loo yaqaan USDT-da waa lacaga joker waa lacagaha macnaha stable coins-ka oo lacagaha kale lagu bedelo macnaha lacagaha laba oo kala baxan kuwana waa lacag oo sida dollarkii qiimihiisii oo aan isbedelaynin oo loo yaqaan USDC iyo USDT iyo lacagaha oo kale oo cryptocurrency-ga oo ah qiimahooda marna kor u kacay marna hoos aadayo marka lacagtaada haddaa rabtid inaad riski badan ka cararaysid lacagtaada USDT ayaad ku haysan kartaa qiimaheeda weligeed sideeday ahaanaysaa as cryptocurrency ahaan marka Ethereum oo kaleento USDC haddaa haysato aad dooranay haddii kalena USDT haddaa haysato USDT ayaa dooranaysaa hadda Bitcoin ayaan dooranay sorry Ethereum USDT ayaan dooranaynaa qiimaha hadda uu marayo waa qiimahaas marka qiimahaas haddii aan farta ku dhufto halkan meeshan waxaa tegayo limit oo qiimihii 1439.29 ah kadib aniga marka lacagtayda wixii available aan haysto ayaan halkan ama waxaan dhihi karaa 25% igad ama waxaan dhihi karaa 50% ama 100% aan dooran karaa ama inta aan rabo oo Ethereum ahaan waxaan dhihi karaa 0.10 oo kala camal igad oo Ethereum ah oo u dhiganto saa arkaysaan halkan 143.92 okay sidoo kale hadda qaybtan sida arkaysaan meeshan waxaa igu qoran available 0.002 laakiin sidaas kama tarjumayso macnaha waxaa laga wadaa optionkaas waxaa waa qaybta assetka ayaa laga soo saxaa qaybta assetka markaa imaato lacagta aad haysato overview ahaan halkan ay kugu soo baxaysaa marka lacagaha waxay u kala baxaan marka dashboardkii oo assetkaaga ahaa guud ahaantiisa waa kana marka qaybtan waxaa waaye main account halka hadda ku dhufato kana waa trading marka lacagtaada marka u horeyso ay ku soo gaarto hadii lacag lagu soo diro
ama aad exchange kale kasoo xawlato lacagta markay kusoo gaarto waxay soo gelaysaa qaybta mainka markay soo gasho lacagtaadi marka waxaa loo baahan yahay in aad xawisho oo aad ka dhigto lacag kaleenta aad ka dhigto kadibna markaas ayaad waxaa samayn kartaa trade ayaad samayn kartaa marka lacagta hadda BUSD ay tahay $15 marka lacagtan ayaa waxaan u xawilayaa waxaan geenayaa kooda hore marka hore transfer aan dooranaa transfer markaa doorto kadibna waxaan BUSD gaan sii dooranaa kadibna all kaas ayaan kasii dhahayaa dhammaantood igu xawil trading account-ka hadda trade account-ka ayay lacagta tagtay kadibna trade-kii ayaan usoo laabanaa kadibna waxaan dooranaa BUSD versus USDT marka BUSD-dii qiimaheedii ayaan halkaan ka dooranaa marka laba option aniga ii furan option waxaa ah qiimaha markaas hadda uu sicirka u marayo oo dadkan way iska gadayaan dadna way gadanayaan lacagta trade-ka halkaas ayuu ka yimaadaa horta sideedaba marka laba option ayaa meesha taalo mid waxaa waa buy midna waxaa waaye sell marka qofka markuu rabo inuu buy ahaado halkan optionkaas ayay ahaani haddaad inaan lacagta iska gadana optionkan kale ay tagaysaa oo guduud ay noqonay markaa ku dhufato soo marka qiimahan ayaan dooranaa qiimahan markaan doorto ani marka kida waxa waaye limitkaas waxa waaye qiimaha markaas uu marayo suuqa inaan automatic dhaho haddii ay isbedesho ay kor u kac imaado ama hoos u dhac imaado sideeda ayuu trade-kii ahaanaa markii ay qiimihii aan doortay ay imaato ayuu isbedelaa haddaan rabo waa iskaga tegaya hadhow waa iskaga soo noqonaa midaas marka waxaa la yidhahdaa buy limit sidoo kale waxaa jira option kaloo ah buy market oo ah qiimaha suuqa uu joogo markaas in aad ku gadato oo aad doorato marketka kadibna boqolkiiba boqol ayaa dooran kartaa kadibna ani marka hadda optionka sell ayaan tagaa 100% ayaan dhahaa kadibna sell ayaan dooranaa kadib trade-kayga ayaan gelinayaa numberkayga trade passwordka oo aan marka account-ka aan samaystay kadibna waan sii dhamaystirayaa sida arkaysaan aniga trade-kii sidaas ayaan ku dhamaystiray lacagteedii oo available USDT-dii ahaydna 0 ayay noqotay markii horena 15 ayay ahayd hadda marka lacagtii oo dhan waxay noqotay qaybta asset-ka haddaa imaado lacagtii oo dhan waxay noqotay USDT waxay noqotay kulligeed USDT ayay noqotay hadda marka waxaan awoodi karaa in aan qaybta buy-ga imaado waxaan awoodaa marka inaan lacagtii aan rabo markaas aan iibsado lacagtii magaceeda ayaan raadin karaa ama halkan ayaan waxaan fiiri karaa suuqa marka waxay ku xiran tahay un dabcan lacagtii markaas aad danaynaysa inaad gadato adigoo iska taxliilinaya lacag ma la gato lacagka aad gadanayso maadaama ay riski tahay waxaa loo baahan yahay in aad riskigaaga qaadato lacagtii markaas adoo iska qiimeeyey oo soo taxliiliyey in aad maaragtay qaadato anaga muhiimadeena waxaa waa videoga aan kugu sharxayno inaan kugu tusno kaliya lacagtii markaas oo sida qaabka loo trade gareeyo lacagta aad rabtid markaas aad waxin karo okay qaabka buy limitka loo sameeyana isagana waa in tusayaa lacagta aragta magaceeda ku qoraysaa versus USDT okay hadda u imaano lacagtan qiimaha hadda ay waqti xaadirkan marayso waa taasa qiimahaas ayaan dooranaa kabacdina waxaan u baahanaa inaan ka gato lacagtan qiimahaas inaan ka gato ayaan u baahanahay 1000 xabo oo kale tusaale ahaan 1000 xabo marka waxay isku noqotay $3.85 tusaale ahaan kadibna buy ayaan dhahaa sida arkaysaan maadaama lacagta sicirkeedii markaas la joogay waqtigii sax aan galay isla markiiba automatic marka waxaa laga yaabaa mar inay kaa soo daahdo haddii aad limit dooranayso marka waa iska sugaysaa haddaad rabtid marka lacagtan marka waxaad dhihi kartaa qiimo kale oo ka sarreysa ugu gado waxaad dhihi kartaa sale markay qiimahaas ay gaarto boqolkiiba tusaale ahaan
45 oo kale markii gaarto $4 iyo bar ayay noqonaysaa marka xoogaa profit ayaa kuu fuulayo adiga oo $1 gaarin 70 cent meelahaas camal fuulayo saas ayaa marka ugu wixin kartaa hadii oo lacagtaasi uu increase ku imaado oo uu kac ay samayso marka sidaas qaabkaas ayaa maaragtay trade loo sameeyaa KuCoin saasaan lacagaha la isku guiyaa lacagta ratidna qaabkaas ayaa loo gataa videogan insha Allah intaas ayaa ku soo gabagabeynayna haddii maaragtay aad ka heshay fadlan subscribe noo saar channelkeena sidoo kale videogan like noo saar aad iyo aad u mahadsantahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.